بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، dadweynaha iyo maamulkaba dhammaantiin waa idin mahad celinaya. intaa kadib darsi ku saabsiisan qofka muslimkaa sugnaantiisa iyo toosnidiisa uu ilaahay kitaabkiisa ku toosnaado iyo diinta islaamiga ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa. dhaqanka aadanaha ma aha in weecweecad laga waayo. aad bay ugu adagtahay bini aadamku inuu qumanaado bes. waxay dhahdeen min caadati linsaan waxaa ka mid ah tadabdub, inuu isbedel uu ku dhaco. waa caadada bini aadamka fii kulli shayna weeyaan tadabdubkaasi. hadday shaqo tahay, hadday dareenka tahay iyo mashaacirtiisa, hadday tahay nashaadkiisa iyo activitigiisa. qofka bini aadamkii bay dhahaan joogtayntu sideeday ugu adagtay. sida awgeed mar waa nashiid, mar waa caajis, mar shaqo badan buu qabanayaa, mar waa wahsanayaa, mar dareenkiisa farxad baa ka muuqata iyo rayn. isbedelkaasi markaa bini aadamkaa dareemadiisa asal buu ka yahay bay yidhaahdaan. inuu markaa sugnaado oo toosnaado, qumanaada, waxay culimmadu yidhahaan waa mujaahada. waa shay dadaal dheeraada u baahan. toosnidu iyo qumanaantu, istiqaamadu iyo habaadku, sugnaantu waa isku macno dhadhow yihin. midi waa inuu qofku mabda'a ku toosnaado, aanu ka weecweecan. inta badanna marka laga warramayo shahwaati nafsiga wixii la halmaala ayaa la yidhahaa qofku waa inuu sugnaadaa, waa inuu toosnaadaa, qumanaadaa. mararka laga warramayo shadaa'idda iyo mashaakilku markuu qabsadana waxaa la tilmaamaa iyana waa qumanaantii una, laakiin sugnaan bay ku tilmaamaan. marka haddii la yidhaha waa habaat iyo haddii la yidhaha waa istiqaama, marna waa isku macna intooda badan. mararka qaarkoodna waa la odhan karaa bacd awjuh ikhtilaaf baa ka jira. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay isagoo inooga warramaya dardaaranadii ambiyadii, ama isaguba ina farayo. nebi yacquub markuu dhashiisa la dardaarmayay wuxuu ku lahaa: yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. caruurtaydiyay buu leeyay dhashiisii isagoo la hadlaya. ina allaha astafaa lakum addiin, ilaahay wuxuu idiin doortay diinka kan kuwii ku dhaqma ee rumeeya ina ahaataan. falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha geeriyoonina idinkoo muslima mooyaane. geerida lama garanayo goorta imanayso. macnaheedu waxa weeyaan qumanaada inta geeridu idinka imanayso. maadaama aan la garanaynin geeridu qofka goorta ay ku imanayso. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah, ilaahay badan buu qur-aanka inagu leeyahay alla ka cabsada, oo la yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. ha geeriyoonina idinkoo muslina mooyaane. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. nebi maxamed baa ilaahay subxaana wa tacaala wakhti dhib aada u badan ee ay quraysh ka haysatay, ilaahay baa ku yidhi wacbud rabbak, rabbigaa caabud intaad geeridu kaaga imanayso, intaad yaqiinta ka arkayso. si awgeed waxaa matluub oo laynaga wada rabaa, ambiyada laga rabaa, dhasha ambiyada laga rabaa, dadweynaha caadiyana laga rabaa. waxaa laynaga wada rabaa waa maxay? ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. inaynu alle subxaana wa tacaala ka dhowrsanno oo aynan geeridu inoo iman ilaa iyo inaynu muslim nahay mooyaane.
maadaama nabiga ilaahay ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badan ee uu ilaahay ku baryayay xadiidka tirmidi ibni maaja warinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay waxa badnaa baa la yidhahdaa nabigu inuu ku ducaysto yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada saxaabi baa weydiiye wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wa bimaa ji'ta bih fahal takhaafu calayna oo waaba ku rumaynay wixii aad la timina waa rumaynay miyaad noo cabsanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna isbacayn intaba waa la akhriyaayo ina alquluub qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doona u gagadiya maadaama gagadoonku uu suurtagal yahay nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaaiin alinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ka hortaagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahawaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahawaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiirkan rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhami waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiin aljinni walins dadka badh shaydaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedho o dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shaydaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha waa shaydaamo aadanaha inta xumaha ugu yeedhana waa shaydaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwa aad aqbasho isagoo ilaahay nabigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftaria calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat ثم لا تجد لك علينا نصيرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمد هرسيت كيدي هقامية هيدي وأمد عدة كده ينسي لكن إلهي وحلي وحد أدوات وحي أدواتي إن كافتنا أيام وحي نكو وحيون وحكمنا سياد waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay litaftariya calayna hayra waidan latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhoweyn lahayen baa ilaahay leeyay saaxiib bay kaa dhigan lahayd aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka badh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararka hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaad jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leeyahy walowlaa an habatnaak haddaanan anagu ku sugi lahayn laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed sidaa loo gelayo maxaad adigu u malaynaysaa
qof feejigoo soo jeeda oo waxna garanaya saxiix qaladku kala cadiin diinka iyo diin laantu kala cadiin soona jeedo mowqif qaadan karaya ayuunbaa badbaadaya ilaahay wuxuu leeyahay nabigiisa maxamed haddaad weecan lahayd idan la daqnaka ضعف الحياة ولا يسوء إضافية ضعف الحياة ضعف أصليا ولا بلاب هل كان لكن واحد لو قلت هذا بيلين شدة الحياة نلاش أديك كذا نكون ردسين لهن كذا كذا وحكار كلهاي قفك جاب المركز صادر كلهاي بايله هيلي ضد وضد قلدان عررته وضد قلدان وحكي ما دعوة محي ووحنا لما خذين marka ilaahay nabigiisa wuxuu ku leeyahay hadaad jidka qaldan mari lahayd abaal markeedo ka kan baad arki lahayd wadicf almamat ay qabla almawt bay culimadu iyadana ku tilmaamaan taa macnaheedu waxa weeyaan dhibaatadu aadamahay ka timaada wuxuu sameeyo hadaad marka xaqa weydaarataan mashaakilkeeda la kulmaysa cid kale ku gargaartana hadii ilaahay imtixaanka kula rabo ma jirtaba alla tilmaamaya quraanka ilaahay wuxuu noogu tilmaamayaa carabi mahma hay taqaanay waxa jirta bay mufassiriintu sheegaan islaan xanuunsanaysay horeer makaad ahayd galinka hore xadhig bay tidacdaa sama taqaaniin xadhig bay soo hodaayo tidacdaa galinka dambana way furfurtaa marka waa qof madaxa looga jiro taas waxay keensatay inuu galina wax dhiso galina wax dumiyo bini aadamku waxa laga yaabaa inaad tiraahdo war qofkaasi waa waalay in badan oo dadka ka mid ah sidaa ku wada shaayidkaad soo galaysaa waad cibaadaysanaysaa waad wardiyaysaa hadhow baad noqonaysaa maqaaxida tagaysaa dadkaad xamanaysaa waxbaad akhriyaysaa intii yareedaad soo shaqotaad rogaysaa haddana saaska rogada marka marna waad xaggaad u socotaa saacada kalena haddana xagga kale aad u socotaa waxaa laynaga rabayna waxaa inaynu sugnaano khayrkeenu shaqaysano inaynan iska dayacin inaynan xan iyo damuub iyo mashaakil kale ku dayacin waxoogaa ka yara khayrkaad soo shaqaysato sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay walaa takunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaatha hala mid noqonina sidii tii xadhigay tidicday soo hoday dib u furfurtay intay adkaysay kadib baa ilaahay leeyahay tii xadhigay intay tidicdo haddana dib u furfuraysay taasoo kale ha noqonina baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala aadanuhu waxaa dhacay inuu wanaag hayo laakiin mararka qaarka inuu daciifo dabeetana istiqaamadu ka lunto walciyaadu billahi iyo dadka badhbaabay kaba luntaaba diintuba marka hore bini aadamku xaqa xoog uma wacda in yar buu wacdaa angal yar 2 degree 1 degree baa laga yaabaa laakiin muddada hadday dheeraato israarkaagu iyo dambi ku madaxadaygaagu hadduu bato angalku sii dheeraanaya masaafadu markay korodho xaqa waad ka durkaysaa in badan baad durkaysaa saawgeed ayaa nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in la arki doono dad waqti aad waa bariisan doonta adoo mu'mina yusbixu rajulu mu'mina ويمسي كافرا أبو نبوي قالك الدمار وقال ما كل عدونا متقالك الدمار قاله وقالك هورانا السلامي محادثك السيدان ووضع الدين تودي مرة يوصل نغريا مرة يوضحيا وحنا بقول المامية يبيع دينه بعرض من الدنيا أدون كيسي دين تسيبو حسيسنا يرى أدون كمده مدي السلطات يا مقع يا ماموس بوسيسنا يا مدي مال يا وحبوسي سنيا واحد دون تبه النقطة من شهوات نفسك وحكم يدون فكان النبي وقلت الماما يا قف إلى حد كبح إلى جالسه وقالنا مسلم وقالنا قال نقولنا سببتنا أي تهي ونقول يا الدنيا قف كجيتي إلهي القرآن كتصالي البدن بمركين وسينا يا النوع والبكمله صاليالك قرآنك بحيه وحكمده دول علماء هانجري وإلهي آيات كيسا يقاني ودبا تنفت موبي وكدمنا كتابك حق دمك حوري
soomaalidu waxay dhahaan wadaadka hebel waa kitaab xoor yani kitaab buu sidan jiray maanta se nin kitaab la weydiinaya maaha kitaabka meel buu iska dhigay shaqo kale u wadaa waa qof wax garanayay laakiin can qasdin uga weecday meel cidlaa cararay ilaahay markaasu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam watlu calayhim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين dadka waxaad ku dul akhridaa oo uga warantaa kii warkii baa ilaahay yidhi waxba lamaga magac dhabin kii warkiisa dadka u sheeg kani muxuu ku caanbaxay awalan aataynahu aayaatina baa ilaahay yidhi aayaadka iyaga baanu siinay waa mid wax garanayay aqoon-yahanaha caalimaha laakiin fansalakh baa ilaahay yidhi waa ka siibmay salakha waxaa la tilmaamaa neefka adhigaa marka haragga laga siibayo kaanama kitaabku war soo joogu leeyo sida iska siibayo ilaahay wuxuu ku tilmaamay fansalakh waa ka siibtay diinkii iyo aayaadkii la siiyey waa ka siibtay oo faatbacahu shaydaan baa raacay shaydaan baa raacay isagaaba laga yaabaa hadduu caliimulisaan yahay isagaaba laga yaaba inuu shaydaanka macallin u noqdo shaydaanku dabagalo isaguu noqdo imaamka shaydaan wax ka baranayo saa dadka loo hallaabiyo ama inay isku wada yihiin oo israaceen fa kaana min alghaawiin baa ilaahay yidhi inta luntay buu ka mid yahay غاويga waxa la yiraahdaa waa ضد الرشد waxa la yiraahdaa غاويga daalka waxa yiraahdaan inta badan waa qof aan wax garanay oo lumay غاويga se waxa yiraahdaa waa qof wax garanay oo lumay ilaahina nabiga labadaba waa kaafiye ma dalla saahibukum wama gawa midaan badana maaha midu ka suga weecanayana maaha baa la yiri ilaahay wuxuu ka ku tilmaamay inuu غاويinta ka mid yahay kuwa wax garanaya laakiin aan baday xaqa dhinac maray waa dhici karta qof inuu noqdo waa dhici karta inay bulshaduba saas ku raacdo iyadoo xaqa garanaysa inay dardarto bulsho badani jamaaca badani dad badani sawgeed baa ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay reer banu israa'iil dad ka mid ah ahlu kitaabkii dad ka mid ah فخلف من بعدهم خلف كودي في عنابة إلهي كورما يدد ونكسنين إلهي إنجيل الهراء أبيال مقعية ما مصر هين يكو أبتر سنيين لكن إلهي وحده فخلف من بعدهم خلف كوا دول با قدال مري دول كريم حيكو عام بحي أولا ورثوا الكتاب ودول دحلي كتاب انت بدن مبادئ دادك وصور دنتين نفي مالو صهورا كما تقال dadka laakiin dhaxalka ku soo gaadhay si qabow ku soo gashay baa inta badan dayac bilaaba dhaqankeena waa aragteeno odayga xoolaha ku dhidaday shaqaystay aad buu ilaaliyaa inay ka dayacmin odaygu se markuu dhinto caruur iska barwaaqo kori markay xoolaha helaan inba meel bay ka tuuraan inuu baabay kaga soo hoydaan diinka cidii u soo dhimatay u soo halgantay wixii loo soo maray ogeyd way xajisataa laakiin waxa la tilmaamay oo iyagu dhaxal ku heshay oo abayaashood iyo hooyooyinkood iyo dadkii ay ku abtirsanayeen oo muslimiin ah way la dhashay ay ba ka dhaxlashay dabeetana islaamnimadu dhaxalkaas ay ku soo gaadhay ilaahay wuxuu yiri kuwii hore qaar baa ka gadaal maray kuwani waa qaar kitaabka dhaxal ku helay laakiin maxaa caada ah يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه كون عدد دوحويان بربك الدنيا هدي هلان واسك قاطع دبتنا واحد لا وغفور رحيم إلهي بان دم دافك سوينا وحضانوا الصمينا يا وحانوا لي إلهي وغفور رحيم إلهي بان دم دافك وتاغي ما dambi dhaafkan uu sheegay ama toobad dhabbaayo bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo laakiin uu soo noqdo sugmo
ما soo noqosho sugitaana ma aha baa ilaahay leeyahay ee wayatihim aradun mithlu yaakhudhu mar labaad haday soo martaan halkii uu ka wadaya jidkan saasoo hayaaba ilaahay leeyahay alam yukhad alayhi mithaq alkitab alla yaqulu ala allah illa alhaq ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون إلهي وحليم ينقوى بالله لك قادم إلهي سبحانه وتعالى قوى ميانو بالله كقادم ميثاق الكتاب ميان لك قادم إن أنا إلهي وحان حق هيك الشيء كتابك مياني درسين دار آخرة أياه خير بدن للذين يتقون كوى إلهي كعب صلاة ورمانك وحقوا إذا كغبت با إلهي ليها فلا تعقلون عقل ما نتشرين تبتنا كوى عكس قوضا إلهي تلمام يكوى كتابك كل جنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوى يو كتابك هايستا ووحك السوي ما أنسي دينين إلهي كتابك أيها الأحبة مرك بني آدم هدي الزمن كل يراضه امتحانك يا رب بطال واحد مدين الدين تفراك قاضاه أما إن إسكيل هذا لا هو غفور رحيم تي واحد دوران صبية لا هو المام يا مؤمنين تهور رجعنا يكمل هاي النفي نفيس بالدين تودو بحيان كسقمان يقوى وضضها يسوعية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وحكم دبا إلهي لي مؤمنين ترك صدقوا ما عاهدوا الله عليه كرر الشيء وحي إلهي وبلن قادين كسقنا ذي مبدأ أوده منهج إلهي أمدنا بوغوي عني رقاسي وحكم دبا كوسا كل انتي يكوى وليتشتك هيو سغيا وح اسبدلنا نقول عين اسبدل الله صبينين مبادئ دودي الدين تودا كلا قالسان أرواح دودي نفتودا شاد ردد ومصرين منا أقبل يا محي تنازل وحلا إلهه إن الدين تودا وحكت قال ما أقبل يا إلى أيك جريون يا إلى هنا وحط الماء كوا السقمة حل الشدة نين إلى هي سوق الدورة أما نفتو مركب بحيسها النقطة توحيدك يكون من دوران أما ملائكة وحرقة حساب مكرية نكيرة حباشة ضدك وقلت ما ضاها النقطة مركز سؤاشة ويدين إياه إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي واسقا قولك ثابت كابا إلهي كسقا نولش الدون يا آخرة markay geeriyoonayaan iyo noloshooda adduunba iyo aakhira markay tagaan xabaasha ku jiraanba ilaahay kuwaasi waa sugaa ayuha la-xibba marka meelaha aynu u baahanay inaynu toosnaano ama diinta ku sugnaana waa dhul tiro badan baabu shubahaat buu ka iman karaa waa in diinta qofka laga shaki geliyo casriganna aad u tiro badan waayo waa casri ay fududaatay xumaha in si fudud laysu gaarsiin karo waa inagan mobile joobka ku wada sidana ee dunida dabadeeda wixii bala ka dhacda laynoo soo warinayo ee lagu akhrinayo maanta waxaaba fududaatay dad raba xumaha inay ku caanbaxaan oo raba dad badan inuu galo in lacag baa lagu helayahay taasi waxay keensatay markaa shubahaadka la akhrinayo inay tiro badato waagii hore dadka waxa wax u sheegi jiray laba qolo dawladda oo idaacad ama TV lahayd oo warkeedu censorship soo maro ama waxaan la qoro madbacada soo maro censorship soo mara iyo sheekh memberka nabi maxamed iska taaga alayhi salaatu wasalaam oo isna diinta ilaalinayo diin ku sugan oo censorship kitaab iyo sunnah maraysna هذا هو منبر وما لا منبر له بين كما قال الله محل إلى هذا الجزيري
هذا نولي بوا هذل كرا نولي بنا ورحمة كرا نولي بنا وشيء كرا سنسر شبنا ما شرو عد ولي بوا وحبي شيء كرتا حتى الصومال دكوا دوالا بيدي جيستان أروالا نطير بدن بابا غير صهرنا ما دام الشهوات كأي بدين شبهات كرة ترى بدين فتن كاتر بدن مركز سجنانتو إن الله سجن مويار ويرانسا تكون قمنا هذان وحسهلا معها إن قمنا هذان ما أنت وحيو بهانتي مجاهدة بيو بهانتي هديت شهوة الجنس هديت شهوة المال هديت شهوة الجاه والسلطان حرصك يا طمع عاطرة بدن له dadku maanta aad ba fitan ku badan yihiin xagga diinta fitan ba ka socda waa ma han noqdo dulmi iyo tuqaad iyo dadka laaya oo xira oo droon ku toogta oo nafta isugu keena oo dad dhow salaado tukata ku oranaya terrorist ba tahay dunida maanta taas caan ka ah dadkii media waaweyn dunida la dhageysta lahaa sumad waxay ka dhigeen qof kasta oo muslima inuu shaabadaas iskaga shaabadaysay marka kullayba marka hore dambiila ta inaad sacdaysa mooyaane halkay qaacidadu ahayd dadku inaanu dambiilayaan ahayn ilaa ay dambi lagu suga mooyaane waa cagsiga hadda baradada shahaadada dambiila tahay inaad sacdayso inaad dambi gelin mooyaane marka fitnadu waa tiro badantay قرآن كإلهي وحنا قورما يدد بدلوا الدين تودي لغو اتحامي في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وإلهي كنت المام يقودك قالي من القصور إلى الكهوف بيغاتين وحيد هذان أبناء الملوك بيهاي عرورتي بغرضوا لشيء لكن دين لام بالغو قصبي دبتنا وحيد دورتين اسكه هجرودان حقا يهجرودين مال كلمة كيوايين قد بيقالين لكن قد كاسا إلهي كوبت بادي وصدح بقلاص النضاد بيقود سكا تشيفين وإلهي أرزاق يوي تشيفين دبتنا لسوكا كعي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى دلين باي هاي باي إلهي دلين يرو إلهي الرميي ألا نهنو نكردي آيات قاسمك إلهي كورمو اسمد الله الراعين يا وحويان فتنة الدين قفك هدا يكون عضو الصحبة الصالحة إيوه آخر حسوستي هذا لبدا صي آيات حاجة دمكة المامية وحكى القرآن من أقول رمية قارية قال بلا يومتي أصحاب الأخدود سورة البروج قوة إلهي كقول رمية مقالا لن وإنت قدد الله قضي لما أنت تدبل قريبا إلهي قرآن كقول رمية ومقالا اسكندن وأن اللي أنا ربي رمية ويلي وري أنه إلهي بانو رميني دبتنا يغو أركية دبلغو قري وولي بدبك مركي لغو قرني إلا داوني إيانا واتسالك لو شيغية دكو الدين تودا سيدي يقول لك جينا وإلهي قرآن كينوت المامي حتى هدي لغو قبيو إن الدين تادا هايسطو الدين تالكا لغا سارو جنجروتو إن الدين تادا هايسطو سأوجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حلقي مكلة شوقي يا خباب بن أرد صحابي قال له رنشري حديث البخاري وحليه النبي قال موسى اشتكوني يسقوا هرقوا ذلك كعبة شيفة أيان وني مبوي متوسط ببردة مركزانو ليلة الرسول كيسيو ما دي له إنه بريدت نبتنا الله نقول فرق هذا ما دي له يقول نو يديس يقرقر وحنا بقول يدك يدين كور رأي متكمل ده أنت الله قبضه قد الله قضى ميشان هالكلاجة صاروا أي اللبل لو كلا شيء يشري أرين كاسين الدين تو ده كم يعلن شري أما قفرد برا فرقته برا أنت الله ساق هذا أي اللفت إياه هلب كلو كلا ساري شري يقول نول فما يسده ذلك عن ديني وحسن الدين تو ده كم يعلن شري من النبي عليه الصلاة والسلام محو تاريخ ده وقا ورمى يا نبي وعلى الرباينا يتكستان إن الثبات لقاها لي السقنان إن الدين تودو
waan baahday looma baahla cunay Soomaalidu ku maahmaahay jirta waa la yidhi diintaada loogama tago waana la maagay diinta loogama baxo saawgeed ayaa waxaynu u baahannahay diinteena inaynu ku dheganaano fitanka ilaahay inooga warramay waxaa ka mid ah matala suuratul kahf jimca kasta waynu akhrinaa dadku inay sunnada maalinta jimcada la akhriyo ayuu yaqaanaa maxaa loo akhrinayaa waxay culimadu yidhaahdaan ama xadiista ku soo arooray akbar dajaal fil caalam soo bixi doona dajaal cawar ninka la yidhaahdo suuradda tani inay tahay waxyaabaa la iskaga dafciya la iskaga celiyo nabiguna wuxuu odhan jiray fitna ninkaa fitnadiisa ka weyni dunida soo mari mayso ee addoomaha allow sugma suuradda inaad akhrisataana waxay kaaga tahay waxyaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka kaga celiya dadka badhbaaba iyagu nicmada ku luma kuwaasi waa shiddadii sugma la leeyahy qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar iska foqora ahaayoo lahaa mar uun ilaahay hadduu maal siiyo inta loo dhiibay dabeetana bidhaantiisaba dib loo waayey markuu maalka helay kibir iyo xumayo inuu xuquuqdii ilaahay bixin waayo kasii qaaday ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وحكم دبالة المامي كوا حنحن المنافقين تياها قار لا إلهي هدو فضلي سوح نغسيو وصدق ديسان الله نضدك الصالحين تابعوا نكمل نقول الله مركي إلهي سيينا بخلي لغو اتحامي إيوه إنه دين تبكى تشيستان إذن شددنا ضدك بدوا اللومساه بدنوا سقمان نعمتنا ضدك بدوا اللومساه نعمة لفتيد يبرواقض يبراره ضدك بدوا اللوميات ودين حمك قاضة ضدك بدنوا سقمان سيدي دبا شهوات نفسه وحي كمدي وحلا إنه يتحامل وأي بنادم بحولها وجعلي إلهي معنا إنه أبورين إنه حول جعل عنه وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما وأحضرت الأنفس الشح نفت بني آدم كاوس كا حاضر سنتهي حول جعل كي يكون أفنت لكن وحالينا براي سيدا بخيل مدى اللي سيقد أي دينتو يروي يا وحلولا بحو سادرادين با إلهي وحكوت المامية markii la yiri oo xudrat anfus shuha waman yuqa shuha nafsihi ba ilaahi qofkii alla ka dhawro bakhaylnimada naftiisa taa macnaheedu waxa weeyaan haday maal tahayna maftuun baato waad imtixaamantay haday shida iyo dhib tahayna waad imtixaamantay hadaa jaah iyo madaxnimo iyo maamuus haysatana waad imtixaamantay laakiin su'aashu waxa weeyaan yaa qumanaan kara yaa se toosnaan kara toosnida iyo sugnaanshiyaha dadka inteeba heli karta dad badan oo markaynu dooranayno af macaan inoo sheega oo yiraahdo waxaan baan qabanaya waxaan qabaa markuu siyaasadda gale oo meel gaadhay bay dib u weynaa waa imtixaan kale waa jira dad sugmi kara oo dad quraanka iyo xadiistuba dad badan oo sugmay bay inooga warramayaan dad badan markii hore masaajidda inala joogana dad khayr qabay ahaay markay maal heleen baaba la waayay oo rabshadu ka shaqeeyeen dad badan marka fitanku dhacay dagaalada iyo mashaakilku yimaado ninkii shalay tasaful awalka ahaa oo dhig bini aadam u haliilayo qori la ordayo badak oo reer rebel hadaynan meel ku ogaanin ama dhig muslim dafirayo le waxaanu idinka garleynay ma jiro oo dadka madaxaysuga warsoodiisa falawalka xagee waxaagii mareen cibaadadaadii xagee ka baxday yani reernimada markii la taabtay ayuu kitaab laba ilaabay meel iska dhigay reerka inuu wax ka dhiciyuunbuu u xidhxidha idan wuxuu dhamma waa imtixaan dunidu laakiin waxa isweydiinta leh yaa sugnaanaya yaa diinta ku sugnaanaya oo xejisanaya waxaynu u baahannahay markaa soo koobayaay
inaynu cabsida ilaahay laazimno. ilaahay waa kaayna leh ilaahay ka cabsada oo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. waxaa laga yaabaa khudbad kastoo jimca in laydinku akhriyo yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa khudbad jimca ah. waxaa layna leeyahy war hooy adduun waa dhib badan yahe sugnaada. maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa waxaa la ogaya nafta bini aadamka iyo labacdeeda qumanidu inay ku adag tahay oo inuu sugnaadaa inaanay fududayn. ilaahayna qur-aanka dhul badan buu inoogu tilmaamayaa dad imtixaanaadka inta la geliyay ku saaqiday. hadday siyaasad tahay boqorro gaalnimo doortay baa ilaahay ka warramaya. fircoon ka mid yahay oo namruud ka mid yahay oo dad xun. boqorro markay xaqa arkeen hanuunayna waa laga warramayaa. gabadhii saba ka talinaysay iyo kuwo markay qabteen cadaalad ku maamulay baa laga warramayaa. nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan iyo taaluut iyo wixii la mida. qaar maal helay oo lumay baa ilaahay ka warramaya. fircoonka lahaa laysa lii mulku misra iyo qaaruun iyo dad la nooca. kuwo xoole iyo waxhelay baa laga warramaya oo dariiqa saxa ah ku sugay sida nebi sulaymaan iyo ilaahay maal iyo boqortooyaba isugu daray. kuwo nooc waloo tusaale ah baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waa inoogu tilmaamay. kuwa diintoodii lagu itixaamay baa laga warramaya ku guulaystay. kuwo diinta lagu itixaamay oo saaqadayna waa laga warramayaa. marka waxaynu leenahay kusoo koobaynaa adduunku waa imtixaan. kuwa shahwaad lagu itixaamay oo guulaystay sida nebi yuusuf iyo maryama. marka waxaan kusoo gabagabaynaya ku koobaya nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tucradu alfitanu cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuuda. quluubta in imtixaanaadka loo soo bandhigo iyadoo tiro badan. qalbi kasta oo imtixaankaasi guulaysan waayaana dhibic madow in lagu dhigayo, kii ku guulaystana dhibic cad in lagu dhigayo. dadkuna inuu u qaybsami doono kuwa markaa qalbigu madoobaado oo aan macruufka iyo samuhuba gelin, iyo kuwa qalbigooda uu iftiimayo oo haddiiba wax ka dhacaan istikfaarta boobayo oo markiiba ilaahay u soo noqonayo toobad keenaya. labadaa nooc bay dadku u qaybsami doonaan aakhirka. marka waxaan ku soo goobayaa ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuuna barayo allahuma ya muqallib alquluubi ثبت قلوبنا على دينك. أما اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إنه بريد إلهي بدينه ددال كنا بدينه ما لها خير كالوها ينا لازمنه قرآن كآخر سكيس بدينه أسباب بدن بجرو سويتان ككنتا هذا سكجر سين ما ينقود هم وحن لنا دول كعلم جاي الدين جاي الذكر جاي عبادة الوها يو هكفوغاني هديك هلا iyagu wuxuu cunaa buu nebigu tilmaamay adhiga ticda ugu baxda. waraabuu xoolaa waa didiyaayo neefka dhinac u dhaqaaqa kaas buu bahalku eriyadaa. marka haddaad dhulka khayrka ka durugtana waad lumi. haddaad dhulka khayrka ku nafta ku xeejisana waa lagu xasuusin oo waa lagu waanin oo waad wardiyo oo ilaahay baad ka cabsan oo qur-aan baad dhigan oo diintaadaa kori oo aadna sugitaankaaga badan doona. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.